السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مر لبعض وحن كسر دواتان ورئيسي الله يشيء محمد أنتي أن ودنك كم مقنع بل محاي جدا بمحمد هذه أنا كسر دو يشيء واحد بدون باكاج شيء دي بدو وحن كسر عركي. بسم الله. horta hinday waad mahadsan tahay runtii aad baan warbixintaadii aad naga siisay Muqdisho Hargeysa Jigjiga aad baan runtii uga masquudnay waa ka helnay haddaan kaaga warramo Minnesota waxaan u maleeyaa 3 sano iyo barbaad naga maqnayd Twin Cities iyo nawaaxigeeda iyo Mareykanka guud ahaan horta number 1 Donald Trump waana dhaafay ninkaas shida badan buu nagu hayay waxa isbedelay horta waxa xiisalay dhaafitaankiisii Trump runtii dad badan waqtigiisii waa la dhibsan jiray dad badan oo Soomaalida waliba aad bay Trump ku kacsanaayeen balse waxaad moodaa Trump dabadii roob badan ma diin Trump waxyaabo sameyn jiray waxa kamid ah Trump wadanka dhaqaale badan buu soo gashay meelo badan buu wax ka keenay niman dimuqraadi la yiraahdo oo runtii wadanka hadda dhaqaalihiisa had hoos buu u degay marka saameyn badan bay nagu keentay ma iyaga mise waxa weeye dhibaatooyinka iska daba yimid iyo coronavirus oo muddo hayay wadanka iyo runtii mar walba dagaalka Ukraine mar walba dhib ka dhaca ninkii qofkii markaa madaxda ah yaa loo saaray sagaaradii usha la kulantay sagaaradii usha la kulantay marka Biden runtii waa dadaalay oo isku dayay maxaan ku yiraahdaa waqtigiisii dadka wadanka dhaqaale badan buu dadka u soo ceshay gelgeliyay laakiin runtii wadanka waxaad moodaa inuu sii degayo hadaba waxyaabay ugu darnaa hadda ugu dambeeyay 3 shay baan rabaa inaan warbixin yar ka siiyo midda koowaad arrinta siyaasadda aan ku bilaabay siyaasadda horta waxaad moodaa dadka Soomaalida state Minnesota jooga runtii waxaad moodaa inay meel fiican ka gaarnay horumar sameeyeen horumar badan bay sameeyeen waqtahay Congress woman baa leenahay waxa ka dambeeyay senator state senator baa yimid laba qof oo mataqaana state representative ay jooga sidoo kale city council ilaa 3-4 city council waan talaabsanay maasha Allah board of education ka horana qof baan u lahayn haddana dad badan baa hadda tartamaya hadda qof cusub ma maqal horta guud ahaan waxaad moodaa in dadka Soomaalida oo positionadii aad loogu ordayo dad badan baa meelo badan u ordaya sidoo kale office-yada ama ha noqoto mayorska ama governorska xafiis walba oo state of Minnesota qof Soomaali ka soo jeeda Soomaaliya badan jooga sax sidoo kale waxa ka dambeeyay oo kale qofkii ugu horeeyay oo state of Minnesota laga qaato Xamse Warfaa oo la geeyay state department la taliye weyn loo magacaabay arintaas waa arin cusub waaye oo runtii hadda guddiga fulinta oo shaqeynaya buu ka mid yahay marka horumar badan oo arinta siyaasadda aan soo gaartay wax badanna waan ka baranay oo siyaasadda waagi hor dadka Soomaalida waa la iska yaaci jiray hadda rag badan oo siyaasadda ku jira waa ka baxeen qola cusub hadda waa ku soo biireen kuwa hadda ku jiro waa bixi doonaan qola bedelaysa waa badanaa siyaasadda Soomaalida saa taqaanana Soomaalidu badanaa siyaasadda waxay u galaan xiiseena maya siyaasadda waxay u galaan maskaxdeeni Soomaaliya nagu xiran qofka Soomaaliga ama markuu senator noqdo ama madaxweyne noqdo ama noqdo senator noqdo meel sare qabto adigu any position uu qabto maamul goboleed madaxweyne ka noqdo ama xildhibaan ka noqdo qofku xoogaa magac buu yeeshaa sax 90% dadka waxa loo galaa gaajada oo waxa la dhahaa inuu xoolo ka helo inuu xoolo wixii ka helo iyo caanimo iyo inuu ka helo badanaa marka dadkeeni qurbaha joogay siyaasadda sidoo kale loo galay laakiin waxaad moodaa dadka siyaasadda galaya dad dhalinyaro ah oo dynamic ah ujeedo inay u galeen ujeedooyin u galayaan oo taqaan wax soo baranayaan qaar aan ujeedo u galaynin oo magac iska raba iyo reerkiina qof ma taqaan cid wali iska masharaxin iyo annaga reeraheena meesha u badan iyo waxyaabo iska cilladii wadanka kala nimid cilladii wadankan kala nimid meehna saameyn bay ku yeelatay dadka badan runtii ku jira dhalinyaro ay badan yihiin arrinta marka runtii negative na waa leedahay positive na waa leedahay wanaagna waa leedahay xumaanna waa leedahay wanaag waa leedahay state-ka wax badan ka qayb galaysaa wixii dhacay dad waxaan dhiiran baan nahay negative na waa leedahay oo hadee dadka siyaasadda noogu jira dhaqankii Soomaalida ay leeyihiin siyaasiyiinta Soomaalida bay leeyihiin shicibkaanina dhaqankii Soomaalida leeyihiin oo wali sidii bay u xukminayaan waxyaaba hadda igu yaabka badan waxaan rabaa inaan ka sheego siyaasiyiinta Soomaalida oo Minnesota joogan waxaan rabaa inaan ka sheego
macna sheegid kama wado waa duraya kama wado laakiin dhaqan ahaanta iyo aragtidaada sax cabir waa ka cabiraysaa sidoo kale shacabka Soomaalidana waxba rabaa inaan ka sheego wasay wax u arkaan dhowr qof baan la campaign gareeyay waan damcay in position aan la raadiyo dad Soomaali ah oo dariskayga ama symbol ha noqoto ama Minneapolis ha noqoto qofka Soomaaliga ah qofka uu doorto wuxuu u qabaa inuu guriga u imaanayo asaga wuxuu ku leeyahay hebel aniga weliga guriga ma soo istaagin saan u doorana maana arkin ama adigu ku shaqeeya markii hadda ma adigu ku shaqeeya public service ma doodan buu shaqeeya waa ta kaliya inaan wali fahmin iyo aabahay baa la caayay aaba madaxweynaha markii wax laga sheego aabaya madaxweynaha wax laga sheego marka dadka Soomaalida markii wali waxay ku baraarugsanayeen war qofkan la doortay hadda issue hayso waa aad rabto issue waliba uu qaban karo waliba inaad dalabka u dirtid ma inuu gurigaaga yimaado meel loo maraa jiray marka inta u yeertid xaafadiina shirtaan qofkii siyaasiga u yeerataan siyaasiga laftiisu waxan wax uu qaban karo mata sax ya wax ka qaban siyaasiyiin badan baa qof city council hadaa weydiisid wax congress woman ama congressman shaqadiisa hadaa city council weydiiso ya saxiyama waxay ugu darnaa badana dad arrimaha bulshada ka shaqeeyayo dad waayeel ama dad waaweyn ama dad dhalinyaro ah oo Soomaali laakiin systemka aan aqoon baa wuxuu ku leeyahay waxaan raadinayaa congress woman hebel iyo waxaan raadinayaa senator hebel iyo state representative maxaa ka rabtaayo guriga laga saarayaayo marka guriga aan uga dacwoodo marka wuxuu ka fakarayaa qof congress ama qof state representative inuu u yimaado guriga kala hadlo gurigiina waxa wax rulkiisii baa laga yaabaa inuu jabiyay rulka ama jabiyay ama uu fahamsanayn ama uu u baahan yahayba qof kaliya qaraabadiisa oo systemka fahamsiye waxa laga rabo fahamsiye taas marka waa midaas taas mid badan ay qaadanaysaa in ka baxnaysa dhanka kale dhaqaalaha dhanka kale siyaasiga Soomaaliga oo la doorto state of Minnesota waxyaabaha aan yaab aan ku aragna waxa kamid ah qof siyaasi aad arkaysa markaas wuxuu ku leeyahay Soomaalidu wax ma rabto wax ma yeesho ma maqasho ma aragto wax ma kala oga oo carisay waradiya mataleysa Soomaalidu carisay Soomaalidu carisay Soomaalida loo wada carisay meel ay joogaan garan waayba qof walba Soomaalidu waa saas war adiga soo ka bintid Soomaalidu waa dad xun Soomaalidu waa siyaan war hadda saas ma ahane adiga leadership baa tahay issue hadaad haysid ama waxa dhaliilaysid ama wax ma ay dareemaysid soo gudbi waxa shaqadaada waadi everyday ada capitalka ada taga dadkan waxa ma oga dadka daily life koodi iyo masaakiin waxay kama qaban karaan nin walba tiisa haysata hadii issue dadkaaga saameyn ku leh hadaad og tahay dadka isugu yeer bar warta waxa tirahdaan this issue sharcigaana gudbaya ka faa'iideysta waxaana qaban kartaan dadkaaga la socodsiin indhaha u fur sax laakiin ceebaha marka ugu filan siyaasiga asagoo dadkiisi matalaya in wax dadkiisi dib ku ah waa soo saxiixa حتى كما هاللي سوون فيرين ما هو بوجي هيبة وإحنا نقصي صومال إحنا كله ما نبان بلم مي إيمان سانا يلا بإيمان ورهدا ما لبس لا إلا لبس لا وباهي مركا صومالي سياسي يكون واساس صح تتكلم مثلا واساس مركا لبدا قلوب اسكو دينسي لبدا مركا لبدا قلوب waxaan rabaa inaan fartiin faro qofka siyaasiga oo ya dadkaagu hadda adigu wax fahamsantahay inta fahamsantahay ma gaarsiisna qoladan ana siyaasadda u gashay adana siyaasadda u galay marka at least inaad abuurto oo dadkan wax garanay oo wax fahmi kara soo saarta 5 4 3 qof 6 qof wixii marka aad rabtay si aad garab u heshid si laftaada bari lagu soo doorto hore ugu sii socotay waa inaad dad samaysataa صح waxay hadda aad siyaasiyiintu ugu mashquulsan nin walba jifada uu ka dhashay anigu reerkeena gacanta ku haya oo reerkiin ma ku tari kara marka labada qolob marka saas ay isugu wareersan yahay marka ay waxaan filayaa dadka Soomaalida dhibaatada xagga joogta la imaanay wala soo guurnay ismayna soo hurgufin marka number 1 waxaan rabaa dadka siyaasiyiinta inaan u sheego dadkeena u jilicsanaada ma taqaana ii sheeg waxa qabtaan waxaad ogtihiin dadku ma oga marka sida u gaarsiin lahaydeen farsamadeeda la imaad dadka la batalo oo anagu aan u horeynana waxaan rabnaa war dadku waxay qaban karin aweydiinina ma qaban karin qof wax soo qaban karin mid kale adiga kaliya kuma joogo mid kale waxa ogaataa qofka intaadan dhaleecaynin oo aad ka daba tagin horta waxaan shaqadiisa ma tahay baloogo ilaa xad ka wax ka qaban kara horta shaqadiisa ma tahay haddaad qof sida consul immigration maanta uu kula wareegto ya oo shaqo ku lahayn shaqo kula ma immigration shaqo kuma leh la kama qaban karo saddex arar ma ahay adaaba kaga rajo fiican oo ballan qabsan kara asoo xataa ballan qabsan karo ma tagi karo marka labada asaas weeyaa marka siyaasadda runtii dhinacna waa ka fiicannahay wada dheer baan ku jirnaa dhinacna badan waa ka soo wada dheer soo socona dhanka arrimaha ma taqaana ee dhaqaalaha runtii
hinday waxaad moodaa wadankii Soomaalida soo dhaqaalaha soo fiicnaanayna ganacsato badan baan yeelanay Soomaalida mainstream shaqooyinkooda la bilaabay dhalinyaradeenii wadanka ku dhalatay ganacsiga ay bilaabeen waxaad moodaa dhalinyarada ugu badan oo hadda meelaha ku dhashay ama iyagoo yar yimid inay shaqooyin professional iyagu ay leeyihiin yaa muranaya business order khatiir baa klinikay furanaysa waxa wax furtay mataqaana consultant samaystay social worker wax samaystay dentistayaal mental health barnaamijyo badan waxa moodaa fieldiga mainka ah waxaad moodaa dadka community-geena in wax lagu soo celinayo sax sababtoo markaad haysatid dad community-gaaga oo baahidaada asturi kara oo ceebahaaga asturi kara way ka duwan tahay qof gaar oo markaad maanta u baahato qof mental health ama maanta oo qofka markaad ajnabi u tagtid inaan u macnayso waxa ku hayo ka bilaabaya ma lagu abuse gareeyaa si lagu reerkiin ma isdirreen ya hebel dadku ku neceb yihiin dignity-gaaga wax u dhimay qofkan inuu ku caawiyo iska daaya problem boodi ka raadinaya adoo wax rabaa inuu ka sameeyo shaqo kala ka abo marka waxaad moodaa baahi badan oo mental health ka dabooleysa la helay sidoo kale arinta mataqaana waxyaabi klinikiyada oo kale dhaqaatiir Soomaaliya fiican kuwa surgery jarrad wadnaha qalaa noo jooga ma sha Allah MDA badan baa noo jooga kuwa badan baa hadda jaamacadaha ka soo baxaya practitioners badan baa hadda jaamacadii ka soo baxay oo waliba gabdho u badan marka hawshaasna waxaad moodaa inta kale waxa isbedelay dhaqaali waa la kordhiyay waagi hore $7 $8 waqtiga shaqeyn jirtay 15 baa laga dhigay $15 baa laga dhigay lacagta ugu yar hadda lagu shaqeeyo walo ay sixir bararka kamid tahay laakiin waxaad moodaa average-ka qof 20 ku shaqeeyo inuu yar yahay macnaha 20 ka yar wax ku shaqeeya inay dadku yar yihiin oo mataqaana meel walba ay saas tahay marka dhaqaalahaas xoogaa waa isbedelay oo wadankii runtii wax badan baa iska bedelay dadkii home owners baa la noqday dadka guryaha la gadanaya Minnesota average-ka dadkii generation-keena aha qof aan guri lahayn waa yari taas marka waxay caawinaysaa ilmaheenu inay ka baxaan public housing-ka iyo ka baxaan mataqaana second generation inay naga nolol fiican yihiin inay naga nolol fiicnaadaan oo mataqaana naga nolol fiicnaadaan ayadoo aad bay u soo fiicnaanaysaa gabagabadii waxaan rabay arrimaha diinta oo aan rabo runtii inaan aad ugu mataqaana dhowr kelmadood ka iraahdo oo qiimo badan runtii waxa ka dambeeyay masaajida badan baa la dhisay central badan baa la dhisay state of Minnesota oo dhan ciidii dhaweydaan ku soo gaaray midda labaad masaajida badan baa la dhisay dugsiyada quraanka more professional baa laga dhigay dadka ilmihii kuraas baa loo dhigay qalin iyo warqad ay haystaan waqtiyo la yaqaano state-ka laga register-gareeyay state registration badan ma jiro laakiin within the masaajidada dhexdooda in mataqaana waa loo ogol yahay mar haddii masaajidka dhexdiisa lagu sameynayo registration kale ma baahna masaajidka iska hoostagayaan marka waxaad moodaa ilmihii scale-ka ahaa dhulka la iska fadhiyi jiray in cunugii iskuulka wuxuu ka yimaado kursigu ku fariisan jiray in kursigii lagu fariisay moralkii fiicnaaday dad dhalinyaro badan oo xufaada baa soo baxday tartamadii adduunka waxaan noqonay Minnesota dhinaca awalba ku jirnay maxamed tartamada caruurtu way inoogu jireen dhinaca dadka waaweyn diinku dhaqanka inaga kala daadsanaa welina inaga daadsan marka aan kula taasna aad u fiicnaanaysaa sidoo kale masaajidada waagi hore masaajid walba iskiis buu u shaqeyn jiray hadda waxaa bilaabatay in masaajidadu isgruubaysi iskaalmaysi isla shaqeeyaan cooperation masjid shan masjid sidii markaas ay dadku isku aragtida ugu dhow yihiin inay isugu yimaadaan oo mataqaana iskaashata la sameeyay iskaashatooyin taa marka waxay soo tayadooda badinaysa iyo tayadii bay soo wax loo baahay waxa kaliya in Soomaalidu aqoonin wax wada qabsiga ma soo fiicnaanay insha Allah barbaaxooyin badan oo nagu soo dhacay darteed oo ku qasbanaanay sababta nin walba markuu masaajid $1 million qaado oo masaajidka ilaa intuu wadi karaa kaliya marka hadda in la isu gurguro marba masaajid la isla dhiso sax arrintaas arrin fiican oo runtii aad u fiican bay noqotay xoogaa inta karoonuhu dhacay muxaadarooyinkii iyo diintii sidii waagi hore dacwada loo wadi jiro looma wado culimadii ma caajistay ma naqaan laakiin waxaan isleeyahay barnaamijyo badan oo hadda kule ay soo wadaan waxaan rajaynaynaa inay wax badan iska bedeli doonaan guud ahaan marka dalkii waa saas waa dadka kuleyna daawanaya adduunka joogana warbixinta waxaan filayaa
warbixintaadii aad isiisaytay inaan kuu gudateeday صح وهي ماشي هبين كم قنتها واحد بدنا كنا في أدون كارو سعدا مركب صح وهي وأنت سو كوبينا ما دمانة سمدوين بدن بينو سكور رئيسن دونا مالين بإن بكسو قادنا إن شاء الله وهي نما دول مر دايما مركب ميل تكتي واحد سبع ركيسة مركب ميل كتكتين واحد كهاد بي مركب بنتين وصل نقانينا حن إن شاء الله عاو كتينا سدا ينبت كليو أرق دم بوحي سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انت يا كدو اب مركب